Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkanu waa Kin Fuad Channel. Waxaan maanta idiin hayaa akhbaar ku saabsan madaxweynaha dalka Mareykanka oo aflagaadeeyay dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed, isagoo markaas ka hadlayay fagaare uu kula hadlayay taageerayaashiisa oo uu ugu ordayo doorashada soo socota ee soo aadan ee wadanka Mareykanka. haddaba maxay tahay aflagaadada kasoo yeertay madaxweynaha caalamka ugu awooda badan isagoo aflagaadeeyay wadanka Soomaaliya, isagoo halkaas ka yiri kana sheegay magaca Ilhaan Cumar kuna soo celceliyay haddana yiri Ilhaan Cumar waxay ka timid wadan aan dowlad lahayn, police ciidan lahayn, waxbana ahayn, caalamka ka ahayn haba yaraatee waxba. Arrintaas oo aad iyo aad arrin looga xumaada oo aflagaadada kasoo yeertay mudane Donald Trump. Maxaase ku aadan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inay hadalkaas uga falceliso maadaama ay kasoo yeertay madaxda caalamka ugu awooda badan? Haddaba dhegeysto maxay kula tahay hadalkaas? Haddii aad dhageysatay, haddii aadan dhegeysan, isku day in aad dhageysatid. waa wax aad looga xumaado. Arrintanina waxay tusinaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan arrin aad u fool xun oo laga xumaado. Haddaba arrintan waxay u baahan tahay falcelin, si kasta ay ahaataba sidii looga falcelin lahaa. Madaxda Soomaaliya maxaa ku aadan, maxayse uga falcelin doonaan hadalkan kasoo yeeray madaxweyne Donald Trump? Hadalkan oo gaf ku qarannimada Soomaaliya iyo jiritaanka wadanka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Aad ayaan uga xunnahay in hadallo noocan loo adeegsado oo ay kasoo yeeraan madaxda caalamka ugu awooda badan. Haddaba asxaabta qaaliga iyo dhageystayaasha igu xiran channelkayga ama hadalkan dhageysan doono, waxaan ka rabaa insha Allah haddii Ilaahay idmo inay gaarsiiyaan dad badan oo channelkaygana subscribe iyo like iyo share saaraan, hadalkana ay ka falceliyaan. Si kastoo ay ahaataba waa arrin aad looga xumaado xaqiiqdii.